بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan mahad ilaahay soo keenay caafimaad qabna markii xigtay noo suurta galiyeen madashan ka qayb galno waxaan salaamayaa garsoorka gobolka Faarax iyo Guuleed iyo Xasan sidoo kale waxaan salaamayaa gudoomiyaha mas'uuliyiinta iyo macallinkii teamkii magaca hore ku ciyaaray daraawiishta heerka labaad oo maantana si toos loogu ansixiyay inay ku ciyaaraan magaca dawladda hoose Boorama B anoo ku hadlaya tababaraha kooxda dawladda hoose Boorama ee Saraayada kulli waa wax qabad soo kordhay aad baan soo dhaweynaa waana fikir fiican inay kooxo A iyo B iyo C iyo yeeshaan ilaa heerka hoose akademiga maayarkuna aad ugu maadsan yahay dhiirigelinta dhalinyartii siiyay kulli annagana inta 7 sano ka badan ma ku ciyaarno magaca laakiin sida kooxaha kale Hargeysa Berberi Burci wax mishaar kuma qaadano laakiin soo dhaweyn fiican iyo wajhi furmaan ka helna markaan saarayno insha Allah ballan qaad badan uu sameeyay oo saaka ugu dambeysayna inuu ka mid dhalinyar rajayna insha Allah hadii la yiraahdo si labada kooxood baa ay noqdaan laba kooxood oo dhiiran oo mar walba tartan ka qayb galayaan mar walba ciyaarayaan si wanaagsan isku diyaariyay insha Allah hadii la yiraahdo teamkan daraawiishta ku ciyaarayay biin mar labaad mar saddexdan ku soo dhaweeyay ku ciyaar magaca dawladda hoose Boorama B waana fikrada fiican kulli qof ka soo keenay oo ugu magac celinayna marka aad badmaadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim waan soo dhaweynay horta marka koobaad teamka dawladda hoose B وانا uga mahad celinaya cid kasto oo ka qayb qaadatay dhisida teamka dawladda hoose B waxaan halkan isaguna uga hambalyeynaya maayarka magaalada Salmaan Xasadi oo ku dhiiraday inuu team labaad sameeyo oo dawladda hoose leedahay waxaan jecelahay inuu sidii teamka hore dawladda hoose ee macallin tababaro ahaa inay iskugu xidhnaan doonaan insha Allah teamkana teamkaas oo ah teamkii kubadda gobolka soo nooleeyay waxaan u naqaanaa teamka dawladda hoose anoo ka garsoorahan teamkii kubadda cagta gobolka Awdal soo nooleeyay iyadoo teamku baabeen oo kooxuhu ayna jirin oo kubad ciyaarin ayuu macallin Ayuub dhisay teamkaasi ilaa haddana ay u ciyaaraan dawladda hoose in wixii ka maqan uu maayarku u dhameystiri doono insha Allah rajeynina dhamaantiin waan salaamayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh